gabagabiyey shir ballaaran oo ka mid ah shirarka iyagu mid ka mid ah beelaha Somaliland maalmahan uga soconayay buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil. haddaba waxaan go'aanada shirkaasi aan ka waraystay Jiif Caaqil Rashiid Maxamed Jaambir. shirkaasi waxaanu ka soo saarnay oo qodobada ka soo baxay ka mid ah midnimada iyo wadajirka iyo wax wada qabsiga beeshu ay leedahay baa ka mid ah insha Allah ta'ala sidii ay u wada jiri lahayd wax u wada qabsan lahayd isugu duubnaan lahayd. waxaa nagu maqaalaa in dooduhu ay mararka qaarkood ay kululaanayeen oo taasina ay keentay shirka inuu dheeraado. maxaad ugu dambeyntii markaasi doodahaasi kululaaday iyo kala ra'yi doonaanshahaasi aad ku midayseen? anigu runta markaan kuu sheego geliyahaanba shirkan wax lagu kala ra'yi duwanaa iyo wax lagu kala aragti ahaa midna may jirin. dooda kululaanaysana wuxuu bay ahayd wanaagga iyo horumarka iyo wadajirka ma jirin wax lagu kala aragti duwanaa. si habsami oo qabow oo ismuuda oo degan buu mar walba u socday shirku. qodobadiina waxaa ka mid ah inaad ku saluugteen xukuumadda cadaaladda iyo saami qaybsiga. bal noo faahfaahitaa. runtii go'aamada ayay ka mid ahayd Soomaaliyeed ka soo baxay shirweynaha beesha ayay ka mid ahayd. runtii haddaanu beesha nahay halkan ku shiraysay iyo hadday beelaha Somaliland oo dhan oo aanu ognahay oo cid nooga hoggaansanay aanay jirin waxaa jirta cadaalad darro ballaaran oo ka jirta xagga nidaamka dowladnimo iyo nidaamka ganacsi iyo nidaamka in cid gaara mar walba loo xidho kooto loogu xidho ganacsiga waddanka oo dastuurka la jabiyo. arrintaas si adag baanu uga soo horjeedsanay waxaana communique ku jirtay in ay Somaliland sida ku dhaqmay oo Somaliland ku ahaanayn ee la helo Somaliland cadaalad lagu qaybsado wax oo kor iyo hoos loo siman yahay. warbutiyeedkiina waxaa kaloo aad ku xusteen colaadda dagaalka tukaraq iyo shaqaaqada ceel afweyn. iyada maxaad ka tirahdeen? annagu dhammaan ceel afweyn iyo meel kasta oo Somaliland iyo dhammaan caalamka islaamka meel kasta oo joogto waxaanu jecelahay inay nabadgelyo iyo isu tanaasul insha Allah ta'ala lagu xaliyo meel walba oo arrinta ceel afweyn waxay beeshu soo jeedisay in nabadgelyo iyo wanaag lagu dhameeyo insha Allah ta'ala aad iyo aadna way isugu waafaqday. Rashiid Maxamed Jaambir oo qadka telefoonka igu warramay isagoo jooga buurta gacan libaax.